السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والالكي قاليga فيديوغي hore dad badan baa su'aalo badan isoo weydiiyay oo aan ka sheekeynay jaadka waxa la yiri Ibraahimow jaadku lama joojin karay waxa loo joojin karay leena maanta hooyooyin badan baa ka soo saara lacagta ay ku noolaysiin lahayn dadka marka sidahan loo joojin karay sheeko kale la yimaaleeyay marka waxaan isku day doonaa su'aasha inta ka jawaabo dhowr minute kadib laakiin inta taa ka jawaabin horta waxaan dul saarnaa maanta ehelka ama faamiyaasha Djibouti sidii bay horta ugu noolyihiin ama noloshooda sidoo u saameeya jaadka maanta horta Djibouti marka aragtid saddex qaybood baa loo kala baxaa qayb lacagleeya oo iska ladan alxamdulillah iska shirshray adduunka meeshay doonaa iska maraya qayb meel dhaxaada oo waxa arkaysa haba yaraatee nolol maalmeedkoogii marna la keenayo si fiican iyo wax yar oo ziyada mar ugu biiraysa marna nolol maalmeedkii una haysan qayb waxa arkaysa faqiiriin amba la dagaaltamaya wallahi xoolihiisa u heli lahayn siday quuto daruriga nolosha maalinta kasta u heli lahayn marka qaybta lacagleeya hadaan iska saarno u soo noqdo labada qaybood dadka ugu badan yihiin maanta reer Djibouti qaybta meel dhaxaadka iyo qaybta ay dadka lacagtoodu la dadaalayay lacag heli lahaayeen quuto daruriga noloshooda taa hadii aan dul saarno waxa arkaysa horta labada qaybood hadaa soo saartid atraadi ehelka labada ehel si u nool yihiin kulli waxa wal garanaysiin ehelyaasha Djibouti waxa laga kooban yahay hooyooy aabo marmar macooyooyin iyo caruur baa laga kooban yahay aabihi waxa arkaysa maanta noloshiisa amba waqtigii markuu lacag soo haylo dhinacu ehelkiisa wareysiin lahaa waxa arkaysa asagoo maalkiisa laba marka loo qaybiyo qayb siinay ehelkiisa amba saddex marka loo qaybiyo saddex qayb oo siinay ehelkiisa amba afar qayb marka loo qaybiyo afar qayb oo siinay marka waxa arkaysa maalinta ka sii dambaysa aabiyo si ziyaasanay lacagtu ku barjeenayay oo kale xaaskiisa amba family-giisa isku dabara wax isku dabartiin ku kafaran isaguna ku faran ku barjeenaya inkana wuxuu kaleeyahay ku faran isku bedela lacag quraac ka keena qada ka keena casho ka keena marka islaamiyiina way yaabihiin waxay isleeyihiin sidii wax u socdaan marka islaantii waxa arkaysa isdabaraysa meel kasta lacag ka keenaysa sidii wax u soo saar lahayd marmar diin soo amaahanaysa sidii quuto daruriga noloshooda u heleed iyo sidii caruurteeda maanta iskoolka dhiganaysa sidii u siin lahayd noloshay doonayaan ee uga bixin lahayd dugsigooga uga bixin waxyaabaha ay doonayaan ku dhan iyadoo marka diin isdul saaraysa taayo iska taala waxa arkaysa aabihiyo si saameynay maalinta ka sii dambaysa dadkii ku garab noolaa waxa arkaysa ka soo qaad aabihiyo inankiisi u diranaya oo kale aabo maanta waxay soo iibisa jaadka inanka markuu doonaya inaan maalinta ka sii dambaysa maxaad u malayn inanka intuu noqon doono wuxuu noqon doonaa oo sidoo aabihi noqdo maalinta kale noo iska barjeen doonaa leeyana jaad badan buu soo qaaday isaga soo tiriyay isaga kala garanaya jaadka fiican ka xun marka wax isku oran doonaa iska fariisanaya ama barjeenaya marka daalac ayaa la raaci doonaa marka daalac waxa la raaci doonaa kulliba aabaha baray caruurtiisa jaadka inkastoo doonin ma aragtay inta bartay laakiin wax loo dirdiranayay waxyaabaha ay ku dhamaa baraya waxa arkaysa iska badaa wax kale aabihi baraya xaaskiisa jaadka sidoo u barana gaafina noo sheegi doonaa waxaan ku هذا sheekan maanta ku hayo كعين كده sheeka cajiiba alcajaayib waliba هاي ma garatan هاي nin baa iska barjeen jiray هاي ha iska barjeeye islaamkiisa ma barjeen jirin هاي marka isma fahmi jirin هاي waqti walba washmeynayeen دوانا جونه dee soo garatay هاي maanta laanta markis وأرجع جاتك بسم الله الرحمن أرجع أبغى بابا كوساق ده أنا كنا ما تقول دراسة horta bal eeg waa awaday weey ورياه أبغى روحان تجاك قوة تاو جيدا هنونا لقيه أنا كنا هيقول دري مريك هيجي سارني يا لبدين بعد ذاك إحنا لكن واحد قيام تري يقدر جاتك horta bal yar eeg haddaan jaar jirin jawaabtaydu ma fiicno adaan jiyaaniyo jeebkaaga sugaya waxba ma weyno inta uu kaa jiro quud awliyo أدو كل معايا وهي صعود horta bal yar dhan أي لا أنا كده دوخات الصعوطة ha qarja سام ده وراك على السمية ma baxaysid waan ismahdaynaa marka ilay balay taqsiintayda bidixdana waan ku badalila tadana waan la bixila sidaan wariyaa fadhiyo hayga dheeraan baan ku dhaano warwareeg galaya hubahana galas digada dadka nakhira macaan wad raafarku waan doonayna سبحان الله يا هيو بسخر هاي لا في هذا بسم الله نفط وحي لا هون أقلب دم وضا ميد دارك وحي أسقى وضا ميد بسم الله ها واصل وياي والله وحي لو لك إصابة قبطة سيسي كلام باهي ما أنت والله يا وانفرنا هي سكامس سام كربلان يسطور بانكرا وانفوحيا إنه هم يجي قبونتا
darkii waagi kuuliga aan ahaa iyo soo saar إيه عدلت روحني ما سيدا وي ما أنت أمم شركة دي هرك ما نقول بقارتها ما سوق قضية هذا كذا عن رئيس siduu gaafana nagu sheegay riwaayadeer waxaa arkaysaa run ahaana badanka qaarkood dumarka saabay ku bartaan jaadka taayoo ah waxaa arkaysaa markaa aabihii bartay jaadka caruurtii bartay qaarkood intii ugu waaweyneed iyo hooyooyinkii iyo maalba maalinta kasii dambaysa sii ziyaadaya dumarka barjanaya de markaa maxaa ehelkii maanta reejibtu yaalaa reejibti haddii aan nahay ehelkii maanta jaadku sii burburinaya maxabadii ka dhexaysay hooyo aabbo iyo caruurta ee ku salaysneed ehelada ama faamigiga ku salaysnaa ayaa maanta sii burburaysa dadba jacaylkii ka dhaxeeyay hooyii aabbo maanta aabihii wali lahaa caruurtooda meeshay socdaan ma arkaysaa maalba maalinta kasii dambaysa isagoo kasii dibidacaya oo iskaga maqan meelo ku barjanaya hooyadiina qaarkood ama in yar sidaa bay ku socdaan caruurtiina amba raggii ugu waaweynaana xaafadda waa sidaa de marka ayaa isku soo haray maanta waxaa isku soo haray xaafadaha caruurtii yaryareed oo iyagu waxay qabtaan may garanayeen qaarkoodna wallaahi waxaa arkaysaa caruurtaa yar markay arkaan hooyadu iyo aabahoodu dee sii bahalkii kaga mashquulay noloshoodii jaadkan waxaa arkaysaa iyagoo mukhadaraad iska daba raacaya oo noloshoodii saa ku burburtay qaar kalena wallaahi u mahadnaqayana waxaa arkaysaa iyagoo dadaalaya noloshoodii inkastoo arkayaan hooyadoodii aabahood sidee waxay ku socdaan amba aabahood siduu ku socdo iyagoo noloshoodii kasoo baxaya oo isle waan dadaalayaa sidaan jaadkan ugu joojin lahaa dad kale sidaan naftayda aan ugu diidi lahaa jaadka le anuu garanaya isagu dhibaatayaashuu leeyahay iyo suu dadka kale ugu gargaar lahaa dadka haddii aad ka mid tahay sacab baan kuu rajaynaya waxaan ku leeyahay ilaahay kaa jisaarsiiyo ilaahayna ha kuu ziyaadiyo inta dadaal soo waday leanna maanta isku mid ma tihiin in yaroo lacag leeya oo wuxuu doona la siinayay iyo adigaa soo dadaalayay maanta heerkan aad joogtid amba heerkan aad tigsanaysid gaari doona insha allah ilaahay ku fududeeyo amba ilaahay ha ku barakeeyo waxa dadaal aad soo qabato ku dhan marka ehelka dadka saa ay u kala bixin maanta nasiib darana eheladiiba sii burburayaan waxna wax sii burburinaya jaadku marka haddii aan u soo noqdo su-aasheenii ahayd bahalkii jaadku waa kaana dilee amba hooyobaa ku nool jaadkiiye maxaan waxaynaa su-aasha horta markaa jawaabteeda ba iska caddahay baan u malaya wal arkaysid maanta lama oran karayo dad baa ku nool jaad markaa ma joojin karayno waxaa horta waxaa jira waxyaabo badan ee dadka ay qaban karayaan maanta haddii aragtid hooyo jaad miis ku iibinaysa waxaa loo waayay hooyada shaqayaal kale ay soo saarto amba shaqayaal kale ay qabato loo waayay way dhici karaysaa maanta dawladdu intay tiraahdo wixii hooyo kastoo maanta ka shaqaynaysa jaad waxaa loo qorayaa famdiminaash baa loo qorayaa ay qaadanaysaa bahalkii lacagtay qaadato bishaarada amba in yar kaabkeed war lacag badan bay ku qaadataa jaadka laakiin lacag ka yar bay qaadan doontaa waxyaabo kale shaqayaal kale loo helaya waxyaabo kale way dhici karaysaa taa wax waqti badan qaadanaya maaha waxay u baahan tahay bas planificationkeega iyo wixii sidii loo eegi lahaa shaqayaal inta taala wixii la siin karaya dumarka iyo sidii lagu badbaadi lahaa markaa way jirtaa horta shaqayaal mee waxaa jirin bas waxaan naga maqan maskaxda fikirkiiba naga maqan oo is oran lahayn waxaan waa mukhadaraad maanta ma jecelini qof khamri ku iibinaya dibadda maanta adigay daawanay ma jecelitaa ama wax mukhadaraad kala iibinaya drog waa karahsanaysaa waxaa leedahay nagada taana maanta inta bas fikirka naga dhaadhacon sarno hooyadan lama jeceli habeerata amba hooyaday lama jeceli intay dibadda ku iibiso bahalkii qaadka ay rag ay ku dacaydeeyaan ee kala dhibaatooto markii kasta rag ee afka isku dhigtaan iyo markii kasta iyada iribay ku faraxsaneen waxaan iibinayso markay arkayso dhalinyartii isu burburinayo marka walaalkay daawanayo haddii ay ka dhaadhacsan tahay maanta lama joojin karay qaad waxa loo joojin karin ehel ba ku nool taa horta waa wax la bedeli karayo marka maanta adiga iribay iska dhaadhacsid waxaan intuu yahay mukhadaraad ama drog maanta ma jeceshid hooyo drog iibinaysa marka taa iska dhaadhacsid fikirka uu ka dhaadhaco maskaxdaada de waxaas leedahay hooyada shaqo kale oo dodan ama iyadoo shaqo kale raadsata ama dawladdu shaqo kale u soo saarta marka dadku ku dhan marka fikirkeenu isbedelo aan aragno wax mukhadaraad wax kale ma aha mushkiladeen wax mukhadaraad ugu arki laanahayn jaadku iyo maanta khamriga ama waxyaabaha kale isku mid maaha ay fiigis jaadku waqti yar oo dheer buu u baahan yahay sidoo uu u dareemtid baalkii ay fiigis maanta alxaqi khamrigu waa degdeg waxyaabo kale ku dhan waa degdeg marka sidahan baan warkay laakiin taa haddii maskaxdeena maanta uu naga dhaadhaco jaad egaala drog marka khalaas waxyaabo badan ma qaban karayna nolosheeda hooyadaas kada wax kale shaqo kale u soo raadin karayna insha Allah marka waa dadaalaynaa hooyo amba hooyadiiba wallahi maanta lama jeceli iyadoo jaad iibinayso waxaan la jeclaan lahaa hooyaday dhuka masaxaysa oo ku daalaysa dhuka intay jaad iibinayso maanta adiga yiri bay daawanayaan hooyada lama jeceli qof hooyadii la jecel ma jiro maanta jaad marka qofna intuu naga dhaadhicin ama in anigu intaas ka dhaadhicin jaad dad baa ku nool lama joojin karayo jaad waa drog dad baa ku nool waa laga bedeli karayaa shaqadooda waa la joojin karayaa
hadalka gabagabadiisa waa intaa waxaan ku rajaynayaa maalin fiican oo wanaagsan ka faa'iideyso noloshada ilaahayna insha Allah naga dhigo kuwii jaadka joojiyay ideelkeenba waxaan ku rajaynayaa assalaamu calaykum baan ku leeyahay waraxmatullaahi wabarakaatuh